maalinta cagaarshowga adduunka ee 28 July waxaa loo xusaa sanad waliba si kor loogu qaado wacyiga bulshada. Cagaarshowgu wuxuu leeyahay 5 nooc oo aad u waaweyn. Hooyada qabta cudurka hepatitis-ka waxay u gudbin kartaa ilmaheeda yar marka ay dhalayso. Waxaa u dhintay caabuqan hepatitis B-ga dad gaaraya 820,000 oo qof. 5 tallaabo oo aad naftaada kaga ilaalinayso cagaarshowga. fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqato YouTube channelkayga Dr. Samir Cabdullaahi Bootaan waxaan ka codsanayaa inaad ii subscribe garayso haddii aad muuqaalka ka daawanayso Facebook page-kana waxaan ka codsanayaa inaad sidoo kale la soo follow garayso haddii aad ka mid tahay saaxiibadii hore noola joogo waxaan ka codsanayaa inaad noo like garayso share iyo comment inaad nagu caawiso si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale mahadsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أول نكتن صاحب يا رسول الله وحدك رسول الله أكون هذا أقول يا برا برشلونة دكتور سمير عبد الله بطان ما أنت وسيدي لبطن بجولة سنة ولا وقت لبطن اللو ما أنت أكل سنة تستوى حال حصة ما أنت على شو أدونك وولي هيباتايتس دي ما أنت على شو أدونك سيدي لبطن بجولة وحال حصة سنة ولا بقى سكر لو وقعوا وعيجة بالشدة يكرو قادستا وحكي قبشة فيروسك على شوه hepatitis-ku waa caabuq ku dhaca beerka. Cagaarshowgu wuxuu leeyahay 5 nooc oo aad u waaweyn. 5taas nooc oo kala ah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D iyo hepatitis E. Hepatitis B iyo hepatitis Z waxay horseedaan inuu cudurku daba dheeraado oo muddo dheer qofku hayo. Sidoo kalena inuu ku dhaco 100 milyan oo dunida ku nool. Hepatitis B iyo Z waa labada ugu daran ee keenta dhibaatada ugu badan. gaarsiiyana beerka qofka heer lagu magacaabo liver cirrhosis ama end stage-ka inuu gaaro beerka sidoo kale inuu isku bedelo cagaarshowgii liver cancer kama dambeysna inuu sababo dhimasho. halku dhiga maalinta cagaarshowga adduunka ee sanadkan 2022 waxay tahay keenista daryeelka cagaarshowga adiga agtaada. taasi macnaheedu waxay tahay in qof kasta oo helaa daryeelka cagaarshowga. hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay diiradda saaraysaa sidii lagu heli lahaa daryeelka cagaarshowga. taasina waxay ku iman kartaa in qof kasta oo helo talaalka cagaarshowga maadaama nooca ugu daran uu yahay hepatitis B-ga talaalkiisuna uu yaalo dunida uuna yahay mid wax gal leh oo in qof kasta oo kamid dadka oo gaara si loo badbaadiyo dadka aan qabin cudurka oo looga badbaadiyo kuwa kale ee cudurka qaba. tan labaad badqabkeedu waxa uu yahay waa in qofka qaba cudurkan hepatitis-ka laga daaweeyo loona helo daawadiisa haddii uu noqdo mid aan la daaweyn karin in lala tacaalo xaaladiisa caafimaad lana daryeelo. 5 tallaabo oo aad naftaada kaga ilaalinayso cagaarshowga. 1 isticmaal cirbad nadiif ah. macnaheedu waxay tahay cirbad qof kale isticmaalay marna ha isku isticmaalin. tan labaadna waxay tahay isticmaal makiinad adiga ku gaar ah sida kuwa timaha lagu jarto kuwa cidiyaha lagu jarto mid qof kale oo cudurka qaba loogu jaray ha isugu jaranin. samee galma badbaado leh macnaheedu waxay tahay guurso lamaane xalaal ah. aad guursan ka horna iska baar qofka inuu qabo cudurka in kale kadibna ka fogow zinada iyo waliba waxyaabaha kaleeto. qodobka afraad iska ilaali qalabyada jirka lagu jeexjeexo sida kuwa tattoo qofka lagu la sawiro. waxaa laga yaabaa qof cudurka qabo in lagu soo sameeyay haddii adiga lagu sameeyana aasas cudur ku qaado. ka talaal ilmaha hepatitis A waa nooc kamid ah cagaarshowga ku dhaca beerka waana nooca ugu caansan cagaarshowgada ku dhaca beerka. hepatitis A-ga waxaa sababa virus loo yaqaano hepatitis A virus. hepatitis A-gu wuxuu inta badan ku dhacaa caruurta yaryar iyo dhalinyarada. hepatitis A-gu wuxuu ku faafaa ama uu ku gudbaa cunto iyo biyo wasakhaysan kuwaasoo leh fayraskii kana imaaday saxarada qof qabay cudurka. inta badan wuxuu aad ugu faafaa ama aad u saaciiday in cudurkaanu fido meelaha dadka aadka u faraha badan ay joogaan iyo waliba wasaqda. hepatitis A-ga waa laga bogsadaa sidoo kalena waa la daaweyn karaa oo gebi ahaan jirka ayuu ka baxayaa mana sababo caabuqa raaga ee beerka dhimashadiisuna uma badno sida cagaarshowyada kale. hepatitis E waa mid kamid ah caabuqyada ku dhaca beerka wuxuuna la mid yahay hepatitis A-gii aan hadda kasoo sheekeynay. wuxuu kala mid yahay qaabka faafitaanka oo biyaha wasakhaysan ayuu isagana ku gudbaa. wuxuu kala mid yahay calaamadaha. wuxuu kala mid yahay daaweynta oo isagana waa la daaweyn karaa waan laga bogsan karaa. laakiin wuxuu uga duwan yahay dhanka dhimashada 10% ilaa 20 dadka oo ku dhaco way u dhintaan hepatitis E-ga. wuxuu aad ugu sii daran yahay oo qatartiisu ku badan tahay haweenka uurka leh.
wuxuu sababaa in gebi ahaanba beerkooda shaqo gabo. Hepatitis B-gu waa caabuq nafta halis gelin kara. Hepatitis B-gu waa nooca ugu halista badan cagaarshowriyada ku dhaca beerka, wuxuuna keenaa dhimasho asagoo qofka u sababeynaya inuu beerkiisii uu ku sameeyo wax loo yaqaano liver cirrhosis oo ah end stage, inuu gaaro marxaladda ugu dambeeyay beerkiina uu shaqo gabo. sidoo kale wuxuu hepatitis B-gu qofka ku sababi karaa inuu beerka ku dhaco cancer, liver cancer, kama dambeysna qofkii ciladaha iyo dhibaatooyinka badan ee ka imaanaya ayuu u dhimanaya. maxaa yeelay beerku waa xubin muhiim u ah jirka bini'aadamka. hepatitis B-gu wuxuu ku fidaa siyaabo aad u kala duwan, kana duwan noocyada ay ku fidayeen hepatitis A-ga iyo B-ga oo ku fidayay cunto ama biyo wasaqaysan oo qofku cabo. laakiin hepatitis B sidaas ma ahan. hepatitis B-ga wuxuu ku faafi karaa in qofka lagu shubo dhiigga qof qabay cudurka, infected blood in qofka lagu shubo, ama se qofka in la duro cirbad oo isduro qof kale oo cudurka qabay lagu duray, ama sakiin shay macnaha af leh oo qofkii cudurka qaba soo jiray inuu qofkan kala jiro. macnaheedu waxay tahay in dheecaanka qofka cudurka qaba uu soo gaaro dheecaanka qofka caafimaadka qaba. sidoo kale qodobka labaad oo hepatitis B ku gudbo waxay tahay galmada. hepatitis B-gu aad ayuu ugu gudbaa maxaa yeelay fayrasku wuxuu ku nool yahay candhuufta, shahwada iyo weliba dheecaanka xubinta taranka haweenka. hooyada qabta cudurka hepatitis-ka waxay u gudbi kartaa ilmaheeda yar marka ay dhalayso. intaasu hab ayuu ku gudbi karaa cudurkan hepatitis B-ga. WHO waxay ku qiyaastay 296 milyan oo qof inay la nool yihiin caabuqa hepatitis B-ga sanadkii 2019. sidoo kale sanadkaas waxaa la sheegay in 1.5 milyan oo qof ay sanad kasta uu ku dhaco cudurkan hepatitis B-ga. sidoo kale waxaa la sheegay sanadkaas 2019 waxaa u dhintay caabuqan hepatitis B-ga dad gaaraya 820,000 oo. sababaha ugu badan ee u dhinteenna waxay gaareen wax loo yaqaano liver cirrhosis, end stage of liver disease. sidoo kale waxaa ku dhacay liver cancer, kama dambeysna wuxuu sababay dhimashada dadka gaaraya 820,000 qof. haddaba hepatitis B-gaas wuxuu leeyahay tallaalkaasoo waxtar leh, badbaado leh, lana heli karo. hepatitis C waa caabuq ku dhaca beerka, waxaana sababa fayras loo yaqaano hepatitis C virus. hepatitis C-gu wuxuu la mid yahay hepatitis B-ga marka loo fiirsho dhanka kala gudubka ama faafitaanka. maxaa yeelay wuxuu ku gudbaa galmada, wuxuu ku gudbaa dhiigga ama xididada, ama se qofka dheecaankiisa qofka kala gaaro. wuxuu kaloo ku gudbi karaa hooyo qabta inay u gudbiso marka ay dhalayso ilmaheeda ay dhalayso. hepatitis C-gu wuxuu noqon karaa mid muddo kooban qofka haynayo ama mid raaga. hepatitis C-ga waxaa la sheegay inay la nool yihiin adduunka dhan dad gaaraya 58 milyan oo qof. sidoo kale waxaa la sheegay sanadkii 2019 in sanad kasta uu ku dhaco 1.5 milyan oo qof. hepatitis C-ga waxaa u dhintay sanadkii 2019 dad gaaraya 290,000 oo qof. hepatitis C-ga wuxuu leeyahay daawadaasi oo 95% qofka ku bogsan karo. laakiin nasiib darrada ugu weyn waxay tahay daawada ayaa qaali ah, lagana heli karin meel kasta. dhibka jira ayaa midkaas waxaa lagu daaweeyaa antiviral drugs kuwaasi oo effective ah oo 95% qofka u shaqayn kara. waxaa sax xasuusnaataa hepatitis C ma lahan wax farsiina, ma lahan talaal. hepatitis B wuxuu ahay mid ka hortag leh laakiin aan daaweynayn, halka hepatitis C oo daawo leeyahay laakiin daawadiisa aan heli karin. marka daawadiisana lama heli karo, talaalna ma lahan. waxaa halista ugu weyn ay tahay hepatitis C. markaana hepatitis D. hepatitis D waa caabuq ku dhaca beerka laakiin u baahan si uu qofka ugu dhaco in jirka qofka uu marka hore ku jiro hepatitis B. cudurkaani inta badan wuxuu la socdaa hepatitis B-ga, ama qofku hal mar ay ku wada dhacaan, ama se qof hepatitis B qaba ayuu hepatitis D ugu darsooma. hepatitis D ma ahan mid keligiis taagnaan kara ama keligiis qofka ku dhici kara. noocan hepatitis D-ga wuxuu u badan yahay dadka keliyaha la oo keliyaha laga dhaqo iyo dadka kale ah drug abusers oo sida qaldan daawooyin ku isticmaala. hepatitis D-ga tirada dadka laga helayo cudurkan dunida tan iyo marka uu soo baxay talaalkii hepatitis B-ga aad ayuu usoo yaraanaya. maxaa yeelay wuxuu inta badan ku tirsan yahay hepatitis B-ga. sidaas darteed haddii tirada hepatitis B-ga ay yaraato, tirada hepatitis D-gana way yaraanaysaa. qofka ay isku raacaan labadan cudur hepatitis B iyo hepatitis D waa qofka ugu daran ama xaaladda ugu adag ku jira. maxaa yeelay waxaa degdegsiimo noqonaysa si dhaqso leh inuu u gudbo beerka qofka liver cirrhosis iyo liver cancer, kadibna qofkii uu sidaasi u dhinto. hepatitis D waxaa looga hortagaa talaalka hepatitis B
haddaba sidaas darteed waxaan ku leeyahay magaalada wuu yaalaa weliba asagoo furiya ayaa meelaha qaar ka helaysa hepatitis B vaccine waxaan ku leeyahay istalaal si aad uga badbaado hepatitis B iyo hepatitis D intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii wacyigelinta maalinta loo asteeyey maalinta cagaarshowga adduunka World Hepatitis Day 28 July 2022 waxaan kugula talinayaa haddii aadan hore u talaalnayn maanta go-aankaasi qaado oo isoo talaal haddii aad hore u talaalinna waad ku mahadsantahay haddii xaafadda ay joogaan walaalo aan talaalin walaalaha caruurta hooyooyinka iyo dadka idin hala talaalo